الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داود الكسود هذا برنامج كومن أنكو فلان دونه بوجاكت برنامج نروح نقول دونه برنامج أنو سي كومن وسو آخر دونه مدة 8 دقيقة كسيمان بوجاكت وقو قيمة بدن بلشة مانتو أما تدوين أدون كده كون علماء أدو آخرستان قيمة كمية buugaagtaas oo inoogu talagalnay inaynu ku kala faa'iideysano ama wanaagida ku jira qaybo kamid ah aynu isxasuusino kadibna qofku uu doonto maktabadaha uu ka helayo ama internetka ama meelaha kale la midka ah buugga ugu horeeya ee doonay maanta inaan la wadaago waxa la yiraahdaa the 5 second rule ama xeerka 5 daqiiqo 5 second buuggan waxa qoray oo qortay gabar la yiraahdo Mel Robbins oo Mareykan ah ama American journalist gabadhaasi waa motivational speaker hadii jeer bulshada waxay kala hadashaa arrimaha dhiirigelinta ay kaga hadashaa waxaanay kaga warantaa buugaagteeda inta badan inay dadku wax qabsadaan nolosha ay taagay in aanay ku qancin ay kor u dhaafaan buugaagta qortay waxa kamid ah powerful journal stop saying you are fire iyo buugaag kale oo lamid ah ay qortay gabadhani markii ay qoraysay the 5 second rule ama xeerka 5 second buug ay u bixisay wuxuu ka dhashay nolosheeda oo baaba'sanayd oo dibadeedna istaba qabataysay deedna ay ku biirtay dadka caanka ee Mareykanka kamid ay ku biirtay waxay la wadaagtay tijaabadeedii nololeed ay adduunka intiisa kale la wadaagtay buuggeegana wuxuu ka dhashay warbixin ay ka jeedisay barnaamijka caanka ee la yiraahdo TEDx oo ay kaga warantay nolosheeda dhibaato badan oo soo martay dabadeedna ay u gudubtay dhinaca wanaagsan oo guuleysatay ayay kaga warantay dabadeedna aad baa loo qaatay social media aad loo galiyay lecture-keegii dad fara badan baa markaa ayaa feedback ku soo celiyay inay ka faa'iideysteen sida khibrad leh u soo bandhigtay nolosha in meelaha xun laga beero dhinaca wanaagsanna loo dhaqaaqo kadibna markaas ay u bixisay buuggeega the 5 second rule waana daabacday buugaagta ugu iibka badan adduunka ayuu buugaas ku beeray waxaana kaga waramaysaa noloshu inay u baahan tahay qofku inuu is horumariyo noloshu maaha inuu qofku meel kaliya taagan yahay maalinta koobaad sabti axad isniin toddobaad bil sanadkii xigay sanadka kale xigay qofku haduu meel kaliya u taagan yahay oo wax badan u soo kordhin noloshiisa waa meel uu ku fashilmay buu taagan yahay saas darteed inaanay maalin la mid ahayn diinta islaamkuna in badan bay arintaasi nooga warantay kaasi ka waramaysa waxa ay ka warantoo kale ay gabadhan sheegtay nolosheena waxa ku jira bay tiri maskaxdeena waxa ku jira waxyaabo badan oo aynu doonano inaynu qabanno laakiin aynaan qaban maxaynu qaban weynay ay boogan ku weydiinaysa marka waxay leedahay 5 seconds 5 second 5 ilbiriqsi ayaad ku bedeli kartaa noloshaada 5 4 3 2 1 talaabo qaad bay leedahay wax kasta 5 daqiiqo ayaad go'aan kaga gaari kartaa bay leedahay go'aanka aad qaadatayna wuxuu noqonayaa bay leedahay haddaad dhinaca wanaagsan u dhaqaaqdo mid noloshaada anfacaya ayuu noqonayaa haddii aad doonayso inaad guul gaadho waa inaad u diyaar galowdaa bay tir hawlo culus waana sida nolosheena dhamay tahay qofku hadduu doonayo inuu guul gaadho waa inuu diyaar garoobaa inuu shaqo culus qabto aqoon fiican barto dadaal badan la yimaado ka fogaado waxyaalo badan oo noloshiisa markii hore aan anfacay laakiin isaga dhaqan u ahayd for example asxaab badan oo meel la fadhiisto muqaaxi waqti badan kaga lumo social media in badan ku jiro iyo waxyaalaha la mid ah cabsida warwarka cabashada iyo ku dhicid la'aantu inta waxay kamid tahay bay tiri waxyaalaha aan qofka ku dhiirigelin inuu noloshiisa u horumariyo saas darteed marka aynu aragno nafteenu inay wax diidan tahay aynu dhinac kasta ka qiimeeyno haynu talaabo qaadno ayuu buugaasi the 5 second rule ina leeyahay dabadeedna 5 qodob oo waaweyn ayuu buugu gabigiisu ku soo urursay qodobka koobaad xaalad kasta oo aad ku sugan tahay adaa go'aan ka gaari kara adaa noloshaada horumarin kara adiga mutacallin noqon kara adiga hogaamiye noqon kara adiga professor noqon kara adiga ayay kugu xidhan tahay wax walba kuma xidhna cid kale marka aynu wax ku fashilano hadaynu kula galgalano cid kale ka masuula waa daciifnimo dhinaceena ayaa ay leedahay qofku waa inuu bilaabaa inuu shaqo culus qabto qofku waa inuu bilaabaa inuu og yahay markastuu shaqo culus qabto midhaheega inuu ka goosanayo koobaad yahay waa inuu ogaadaa xilka saaran
inuu ka badan yahay intuu isagu dareensan yahay waa inuu ogaadaa shaqooyinku inaanay dhammaad lahayn shaqaduna maaha hanti laga helayo kaliya laakiin waa mid kasta oo bulshada lagu horumarinayo saasay tir qodobka labaad waxay tiri waxa weeyaan qofku waa inuu yool leeyahay dhammaanteen waynu wada garananaa yool waa inuu qofku leeyahay yool u xaqiijinayo procedure buu u marayaa qorshuu u marayaa plan buu dhiganayaa qofku dabadeedna markaas hore ugu dhaqaaqaya qorshahaasi waa qorshe maalinlaah qorshe toddobaadlaah qorshe bilaah qorshe 6 biloodlaah qorshe sanadlaah qorshe 5 sanaba mara ama 4 sanaba mara noloshiisu haddaanay qorshe lahayn qofka waxa fudud inuu qofku si liidata nolosha ugu dhex noolaado in dhammaanteen qof kasta wuxuu doonayaa shaqo fiican magac fiican sumcad fiican caafimaad fiican iyo wax la midka laakiin waxay ka dhalanayaan waxa soo dhami inuu qofku hawl culus qabto oo uu shaqo qabto goolna uu dhaliyo dadku haddaanay nolosha gool ka lahayna waxa dhacaysa inaanay qofku aanu gaadhin meesha uu doonayo waxaan tusaale u soo qaadananaa jaamacadda Harvard ee Mareykanka ayaa waxay qiimeysay 100 qof oo kamid ah ardaydeeda buug kale oo ahayn buugan bay ku qorantay laakiin maadaama ay tiri to act on a goal in qofku goal uu ka dhigto hadaf ama yool inuu qofku samaysto markay gabadhu leedahay ayaynu tusaale u soo qaadananaa sheekada jaamacadda Mareykanka ee Harvard University ayaa waxay samaysay 100 qof oo kamid ah ardayda ka qalin jabinay ayaa su'aal weydiiyay maxaa doonaysaan mustaqbalka inaad noqotaan 100 qof waxay ka jawaabeen su'aashi dhakhtar baan doonayaa injineer baan doonayaa pilot baan doonayaa maaragtay inaan baarlamaanku biiraan doonayaa nin walba meel buu la maray waxa la weydiiyay sideed u doonaysaa 100 qof 10 qof oo kamid waxa qoreen procedure-kay ay marayeen balaankoogii bay qoreen sidii yoolka ay u dhigteen bay qoreen 10 sano kadib jaamacaddu waxay bilowday inay 100 qof ka daba tagto si ay u hubiso wixii ay sheegayeen inay heleen iyo in kale waxyaalaha cajiibka soo baxay waxa kamid ah 100 qof 10 qof ee balaanka samaystay qorshaha lahaa ee jaamacadda u soo bandhigay qorshaha inay hantidoodu la mid noqotay hantidii leeyihiin marka la isku daro waxay leegaatay 90 kale sababtoo ah iyagu waxay samaysteen qorshe iyagu waxay samaysteen plan jaamacadduna waxay markaa soo kordhisay qofku in markaa aad loo baaro dadku inay qorshe samaystaan ay noloshooda ay ku waajaan marka qof kasta oo noloshiisa qorshe u samaysta waa qof kasta oo noloshiisu ay horumarsantahay waana taleynaga doonayo marka buugga the 5 second rule qodobka labaad waxay ka dhigtay inuu qofku gool leeyahay goolkan inuu xaqiijiyo ay tahay goolkaagu waa maxay maxaad doonaysaa 5 sano inaad qabato maxaad doonaysaa sanad inaad qabato maxaad doonaysaa inaad markaasi noloshaada oo dhan ku guuleysato inagu maadaama aynu muslimiin nahay nolosheenu way ka fog tahay adduunka aakhirana ay dhinaca aakhiro ayaynu inagu u soconaa oo nolosheena ugu dambaysa aynu ku dadaalnaa mar walba waxaan dhiraanaa aakhira ka dambaysa iyo maalin aan maanta ahayn baad garan doontaa maalin aynaan qorshe ka dhigan oo qorshaha inoogu jirin hadaan aakhiro inoogu jirin maalintaas aynu garan doonaa waa talayda oo inaynu janno helno oo inuu markaasi ka badbaadno naar ay qorsheena ugu dambeeyay laakiin adduunka marka joogto arday hadaa tahay dugsi sare dhigata arday hadaa tahay dugsi dhexe dhigta arday hadaa tahay jaamacad dhigta hadaa tahay qof kale oo mutacallina hadaa tahay marka qof bulshada ganacsada qorshahaagu muxuu yahay sanad 2 sano 3 sano iyo waxa uu dhigma saas darteed waa inuu qofku qorshe noloshiisa u samaystaa ay buugan ay gabadhu kaga waramayso qodobka saddexaad ay kaga waramaysaa waxa weeyaan you must push yourself qofku waa inuu naftiisa isagu riixa maaha naftu inay hogaamiso haddii naftu ku geynayso maqaaxida haddii naftu ku geynayso social media haddii naftu ku dirayso inaad wax xun daawato haddii naftu ku geynayso inaad salaada ka seexato haddii naftaadu haddii adiga ku riixayso waxa weeyaan naftaada ma hogaamiso laakiin adigu naftaada hogaami adigu halka doonayso gee naftaada hadaa doonayso inaad noqoto qoraa waa inaad wadadeeda marto hadaa doonayso inaad noqoto dhakhtar waa inaad doonayso inaad qof maalqabeena noqoto waa inaad wadadeeda martaa waa inaad maaraysaa arrimahaaga kala daadsan oo dhan arrimahaaga kala daadsan shalay iyo maanta bari iyo saan dambe bisha December iyo November October iyo January bilu waa inaan iska keenmid noqon bil kasta qofku waa inuu sameeyaa inuu markaasi hore u socdo waa qodobka markaa si uu qorshe cusub uu qofku sameesto qorshahaas
uu hirgeliyo marba in ka hirgeliyo intaasu baa anfacsa. qodobka afraad waa buugga ugu magac dartay 5 daqiiqo gudahood ku dhaqaaq bay tir wax kasto inuu qabanano ha ka fikirin oo noloshaada horumarinaya ha ka fikirin inaad aqoon hesho ha ka fikirin waa inaad markaaba raadsataa aqoonti inaad hanti hesho ha ka fikirin waa inaad wadadii loo mareeyay saxda ahayd aynu raadsana yoolkeenana aynu xaqiijina. qodobka ugu dambeeya ee shanaad waxa ay tiri maskaxdaadu yaanay hadilin maskaxdaada hadilin waxa ku kaydsan yaanu jirkaaga kale meel kale la marin. for example waxa jeceshahay inaad buugaagta akhrisato waxa jeceshahay bishiina 3 buug 4 buug akhrisato laakiin daalka jirkaaga ku jira ayaan ku saamaxayn inaad akhrido. maskaxdaada marka dareen ah ku celiso inaad daalan tahay iyaduna jirka ay amraysaa marka jirku inuu nasto deedna inaad hamaansato inaad seexato buug marka soo qaato inaad ilmayso inay buugaagtu ku dhadhami waayaan. laakiin haddaad TV daawato saacado badan inaad saacadaha badan daawan karto social media inaad 5 saacadood 7 saacadood ku jiri karto laakiin buug haddaad soo qaato marka 10 daqiiqo joogto inaad buugga iska laabto waxaasoo dhami maskaxda yoolkii ay xaqiijin lahayd ayay dilaysaa. saas darteed waa inuu qofku qorsheeyaa qaabku u noolaanayo waa inuu qofku qorsheeyaa sida arrimihiisu ugu kala muhiimsan yihiin. waxaa jira 4 qaybood oo nolosha lagu maareeyo. kow arrimo waxay u qaybsamaan important and urgent wax muhiima oo degdega wax muhiima laakiin aan degdegayn waxaan muhiimayn laakiin degdega waxaan muhiimnahayn degdegna ahayn. afartaasi ku kala jiraan marka bulshadu qof walbaaba sidoo prioritieskisa u arko ayuu gelinaya. waxa laga yaabaa dadka qaarnii ku mashquulsan yihiin arrin aan degdegna ahayn muhiimna ahayn oo iloobeen arrin muhiim oo degdega inay qabtaan. nolosha waa inaynu shaqooyinka nu qabanay kala duwan waa inaynu u kala jiraan kategoriyada saxda ah saynu horumar haddii kana maskaxdeenu waxay noqonaysaa inay badnaato. maskaxdeenu markii aqooni geli weydo waxa gelaya qashin iyo wax kale qofku wuxuu ka fikirayaa qabyaalada maanta mashaakilaadkeena haysta qof ashxaas baynu dhaafi waayna dad baynu dhaafi waayna had iyo jeer waxaanu ka sheekeynaynaa nolosha dadka waxaynu gaari waayna inaynu ka warrano fikradaha iyo wax la midka dhiirigelintu inay dadku la dhiirigeliyaa oo buugaagta motivationka la qoraa waxay ka mid noqotay oo la isku raacay inay waxyaalaha dadka patroolka ku furaya dabka ku shidaya ee uu qofku ku horumarayo ayaa la isku raacay. laakiin qofku hadii aanu akhrisan buugaagta dhiirigelinta ama aanu dhageysan dadka wax dhiirigeliya ama aanu diyaarba u ahayn inuu noloshiisa horumariyo waxa weeyaan meel cidla oo aan wax badan soo kordhinayn ayuu qofku dhimanaya. dhinaca kale waxa jira in maaragtay buugaagta motivationalka ama dadka motivational books speakers dadka ka hadlaaya jira arrimaha dhiirigelintu waxyaalaha ka sheekeen waxa kamid ah buur dulsheed fuul qayli waxa tiraahdaa waan karaa waxaan qaban karaa all of that uma baahnid waxaasoo dhan isku mashquuliso ama in time ka had tiraahdo marka daqiiqad kasta waxaan qabanaya maxay intaasaan cunto cunaya intaasaan sharbaad xirnay intaasaan meedhanaya intaasaan qaab noocaasna uma baahnid. waxaad u baahan tahay noloshaada qaybaha ugu muhiimsan inaad awoodda saarto qayb kasta meeshaad ugu talagashay inaad sideedun uga soo baxdo marka shaqo lagu diray qabanayso inaad shaqada u qabato sida ugu fiican inaanad shaqo doonan haddii aanad si fiican u qabanayn inaanad mas-uuliyad qaadin haddii aanad ka soo baxayn. markaad mas-uuliyadda ka soo baxdo inaad shaqooyinka doonato mas-uuliyadda naftaada waa inaad xayndaab ku hayso xumaanta ka ilaalisaa xaaraanta ka ilaalisaa in jiritaanka ku dadaasha ilaahayna subxaanahu watacaala aad ku xidhnaato. shantaasi waxay ka mid yihiin 5 qodob gabadhaas ay ku soo urursay the 5 second rule ama 5 xeer ee markaas ay ugu tala gashay in 5 second lagu qabto. buugaas wuxuu ka mid noqday buugaagta adduunka ugu qaalisan ee best seller bookska ayuu ku biiray ama buugaagta ugu iibka badan dadkuna aad u akhristaan. dad fara badan oo ka jawaabeen waxay yiraahdeen noloshayda ayuu wax badan u ka bedelay. laakiin inagu ka muslimiin ahaan mushkiladda maanta in haysta waxa kamid ah buugna ma akhrino hadday ama buugaag fiican lama qoro haddii la qorana siyaasadaha dawladaha ayaa markaa control buugaagta dabadeedna dadka bulshada inta wax soo gaadho fiican way koobantahay. haddii la qorana meelihii lagu akhriyay ayaan haysan ka Soomaali ahaana waynu ka sii duwano in qofku muqaaxi ka warramo ayaa inta badan uga qiimo badan inuu buug uu ka warramo. waxaan rajaynayaa qodobada inaad ka faa'iideysateen aad iyo aad baad mahadsantihiin tan iyo barnaamij dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.